السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha lahow halka aad nagala socotaan ama barnaamijkan si toos ah idinka imanaya waa golaha falanqaynta siyaasadda Soomaaliyeed haddii ay noqon lahayd dibadda iyo gudaha indhawaalaba sida aad maqlayseen waxa magaalada Gaalkacyo lagu xiray gudoomiyihii hore gudoomiye ku-xigeenkii hore ee magaalada Gaalkacyo Dr. Yaqub Maxamed Cabdallah oo lagu xiray khudbad dheer oo ka jeediyay madaxweynaha maamulka Puntland hortiisa si kastaba haatee Yaqub oo muddo xidhnaa ayaa dhawaan la soo daayay labadii cisho u dambeysay idaacadaha maxalliga iyo kuwa Soomaaliyeedba waxay qaada dhigayeen sababta lagu xiray gudoomiyihii hore ee magaalada Gaalkacyo Yaqub oo hadda khadka ku jira isagoo jooga magaalada Gaalkacyo iyo gurigiisa ayaan jecelahay inaan u soo bandhigno sababihii lagu xiray iyo waxa ka dambeeyay inuu madaxweynuhu amar ku bixiyo in la xiro Dr. Yaqub oo aanu jecelahay in khadka telefonka oo aan ku wareysanayno madasha sigisi in dadka Soomaaliyeed iyaguna madasha ku jira ay si xalaal u weydiin karaan sababihii loo xiray Dr. Yaqub waxaan ku leeyahay ku soo dhawow marka hore madasha sigisi waa mahadsantahay waan dhawahay Cabdi aad baad u mahadsantahay inaad naga aqbaso telefonka aan ku soo diray codsigiiba waxaan jecelahay haddaba bal inaynu waqti dheer aynaan aad u qaadan dad fara badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha iyo gudahaba ku nool gaar ahaan reer Puntland ayaa waxay ka walwalsanayeen sababta xilligan keentay in adiga lagu xiro waa maxay sababta lagu xiray gudoomiye bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala sayyidil mursalin salawatullahi wa salamuhu alayhi Cabdi waa mahadsantahay walaal waxaan rabaa adoo mudan mahadsan inaan ka saxo Gaalkacyo ma joogo garow waan kala hadlayaa meesha lagu xirana waa garowe taytalka ahna dictorna ma gaarin wali ardayba ahay Yaqub Maxamed Cabdallah ayaan ahay khudbadana iyo kelmadeedana madaxweynaha kama soo horjeedina media ayaan mariyay saddex xeelood baan jeclaan saxo hay'adana ka bacdi intaad maqasheen baa dhacday madaxweynuhu wuxuu bishan July bilowgeedii baarshantii markii ahayd shanteedii ama afarteedii manaxsan ahayd madaxweynuhu dekreeto soo saaray uu gobolka Mudug ku magacaabayo ku hagaajinayo maamulkeeda sidaad warkayga ishtiraayay hore aad ku maqasheen wax wanaagsan bay ahayd Mudugna waa u baahnayd isbedelkaas oo ahaa midka ku saabsan inay Mudug ammaankeedana balgacdo loogu soo celiyo horumarka ay u baahan tahay iyo dibdhacan ay ka soo kabato laakiin saa hore u sheegay madaxweynihii baa il duufay oo waxa weeye dhinac maray habkii Puntland waxa qaybsiga iyo dowladnimadii Puntland waxa ku dhisnayd in dadka Puntland isku yimid 1998 la qanciyo dad badan oo ka dambeeyay deegaano ka dambeeyay oo soo kordhayna aan la xusinin anoo marka taa ka hadlaya maadaama gobolkaas ka soo jeedo oo ku dhashay oo gobolkaas waxa weeye siyaasadda ka soo galay dadkiisana aan garanayo baahida ammaanka ay u qabaan iyo inay isku mid noqdaan iyo inay isku dubnaadaan iyo inay maamul ay wada leeyihiin wada helaan oo aan garanayo dadka guuxooda aan garanayay ayaan ka hadlay waxay taasina kaliftay shantii bishii toddobaad habeenimo anoo koob lagu qaxweeyo fadhiya oo magaalada dhexdeeda ah inay yimaadaan ciidamo hubaysan oo aan wax waarana wadan waxayna igu amreen inaan raaco waxaana lagu xiray saldhig galbeedka magaalada Garowe ku yaala bilaa maxkamad la'aan iyo bilaa waaran la'aan 5 beri baan ku xirnaa maalintii lixay ahaydna maxkamadan ka soo muuqday 3 jeer oo kala duwan oo loo maalmood u dhaxaysa maxkamadaasi ka soo muuqanayay waxaana ilaahay mahadiisa ahayd maxkamadii eedamihii la ii haystay oo ahaa inaan madaxweynaha la gaadeeyay dadweynaha inaan kiciyay in maaragtay madaxweynaha aan been ka sheegay ayay kulli wada laashay maxkamaddu 3 maalmood ayna dhageysanaysay warbaahintan laga dhageysanayay sida maxkamaddu ay u socotay adigu haddana iyadoo intaa laashay bay 4 bilood ugu xukuntay 4 biloodna ayadoo un baa garanaysa waxay u cuskatay ama ku micnaysay ayad quraana oo tiraahda inna bacdadani ismun fala tajassasu wa yaqtu bacdukum bacda ay yahibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu ayay iyo cuskatay maxkamaddu waxay ugu radani ma ahayn oo dekreeto madaxweyne ayaa meesha taallay oo lawyer-kaygu hayo akhrinayay liiska dadka say ugu qornaayeen iyo si ay uga kala soo jeedaan marka intaa waa dhacday xariguna macno badan hadda ma sameeyo oo waxa weeye muwaadinkuna xaq buu leeyahay inuu hadlo dastuuriyan haddii muwaadinka laga shakiyana waa la qaban karayaa cadaaladda ayaana muwaadinka shaki saada marka waan ku faraxsanahay cadaaladdu ay soo saartay oo maaragtay ay caddaysay inaadan wax dembiya lahayn waana ku faraxsanahay dib ugu laabtay xorriyadayda iyo howlahayga caadiga ah Yaqub
goormaa lagu xidhay adiga ma khudbadda intii xilka lagaa qaaday kabacdi baa marka lagu xidhay mise intii aad xilka haysay xilliga lagu xidhay? cabdi daahir anuu xilka ana waxaan ka tegay May 3 markay ahayd taarikh 3 May 2015 sanad iyo xoogaa baan ka maqnay xilkaas laakiin anigu markaan hadlayna waxa ahayd July 2016 ayay ahayd marka waad garan karaysaa iyo sanad iyo 14 bilood xilka xafiiska ka maqnahay shirkiga jaraa'id ayaa waxaan qabtay galabnimadii bisha 5 markay ahayd July duurnimadii 12 PM markay ahayd annaga noo ahayd waxaana la xiray fiidnimadii 9:40 meelaha markay ahayd isla 5 bisha July markay ahayd marka saacada u dhaxaysay shirkiga jaraa'id iyo xarig. Shaqada waa maxay sababta aad uga tagtay adigu markii hore mar haddii aad ahayd qof la soo doortay oo dadku soo doorteen oo deegaanka ku jiray waa maxay shaqada sababta aad uga tagtay maxaad tabaysay maxaa kaa maqnaa adiga? waa caday waa muddo history la soo dhaafay waa caday taas waxay ahayd marka la dooranayay ayaan khudbad u jeediyay dadweynihii iyo dadkan codka ka raadinaya consulka ahaa waxaan ballan qaaday meesha wax joogaan haddaan wax ku darinin oo aan tillaabooyin hore u qaadinin inaan soo celinayo mas-uuliyadaan hayay sanad markii aan joogay anaa isqiimeeyey xafiiskayga wuxuu horumar gaaray iyo wuxuu dibdhac keenay marka waxaa ii muuqatay sanad aan xafiiska fadhiyey inaysa isla ekeen rajadii la qabay waxqabad iyo wixii aan qabanay maamulkayga yimid marka maadaama aan arkay xubnihii kalanaysa iyaguna mas-uuliyadda ayla qaadanayn anigu si volunteerly aan waxaan u ogolaaday inaan dadkii mas-uuliyadda ku celiyo marka taas mar hore ahayd saaseen ahayd mas-uuliyadda dadka aan u ballan qaaday iyo khudbadeeda waxay ku jira ayaan ii oofin 12 bilood marka waxaan u gartay inaysan dadweynuhu xaq u lahayn inaan waqti dambe ka qaado sidaas baan u shaqada uga sidaad sheegtay Yaquub waxaad sheegtay inaad shaqada adigu wixii ku dadka u ballan qaaday inay wixii haddaan waxba ku soconayn inaad maxaa kaa hortaagnaa in shaqadaadu ay sidii aad ugu talagashay ay u socon weydo ma dawladda dhexe kaa hortaagnayd ma guddoonka gobolka mudug baa kaa hortaagnaa waa maxay sababaha shaqadaadu ay u socon weyday xilligaa? waxa weeye inaan maantay oo aan xarigayga kabacdi hadlo oo waxyaalihii challengeska shaqadayda ka hor yimid aan ka hadlo cabdidaahir oo hadda ilamana qurux badna macno weynna samayn mayso horey baan uga gaabsaday in arrintaa ka hadlo laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego baahidii dowladnimo ee la qabay gobolka mudug laga qabay iyo awoodda dowladnimo ee taale xilliga aniga shaqada ka tegay ayaa kala duwan waa dhici kartaa maanta inay isbedeshay oo wax laga qabtay oo awooddii dowladnimo la xoojiyey laakiin anigu xafiiskii aan ka tirsanaa baahida loo qabay inuu shaqeeyo shaqadiisa waajibaadkiisa inuu guto iyo awoodda uu haystay shaqadiisa u ogolaanaysa inuu guto ayaa farqi weyn u dhexeeyay marka sababtaasaa kamid ah waxyaalihii inii ogolaa inaan hamigaan qabay iyo riyadaan qabay markaan xafiiska imaanayay inaan wax qaban karayo inaan ii suurtagelin. Yaquub hadda sidaad carabaabaysid waa diiday inaad ka hadashid ama wixii aad xilligaa jabaysay xilkiina waad iska casishay khudbad dheer baad ka jeedisay telefishinada afka Soomaaliga ku hadla khudbadaana hadaladii aad ku hadlaysay waad xusuusanaysaa mar haddaad markii aad shaqada ka tagtay aad hadli weyday maxaa xilliga kugu kalifay inaad hadashid oo aad si toosa madaxweynaha aad farta ugu fiqdid? walaal dalka waa la wada leeyahay puntland 2014kii intaan doorashada la gelin waxaa kamid ahaa dadkii isbedelka u qaylinayay oo rabay oo rajaynayay puntland inay waxa weeyaan horumada oo maanta meesha joogto meel ka badan ay gaadho 14 rajadaan qabnay bay mudug kamid ahayd hawshada in la xaliyo dhaqaalaha inuu isbedelo maamulka dawliga inuu noo fariisto oo maamul wanaag aanu gaarno hay'adaha dawliga in la xoojiyo awood ay yeeshaan ammaanku inuu noqdo meesha maalinta meel ka wanaagsan marka maalintaas aan xil ka tegayay waxa aniga ugu saabsan bay ahayd shaqadii la ii dhiibay laakiin sanad markaan aamusnaa oo aan dalka fiirsanay waxa ii muuqatay isbedel badan uusan jirinin anigu shakhsi ahaan waxaan aaminsanahay inaan ku hungoobay isbedel doonkii aan doonayay 2014 waxaan filayaa wixii maalintaa gacanta ku haynaysa waxba ku kordhinin oo waxba iska bedelinin marka sababtaasaan u hadlay oo keenay maanta inaan hadlo waxaan kale u hadlay waxaan garanayaa cabdidaahir gobolkaas baan anigu waxaan ku yidhi kasoo shaqeeya oo garanaya baahiyadiisa dadku waxay doonayaan cabdidaahir oo inay mas-uuliyadda gobolka ee dhibaatadiisa ammaanka iyo horumarkiisa dhaqaalaha in lagu bixiyo la doonaya inay dadku ka wada qayb qaataan ay wada dareemaan wada lahaansho waxaana taa fura u ah oo lagu soo furi karaya maadaama Soomaalidu weli aysan qabyaalada ka guurin maadaama dadku weli nin jeclaysi ka guurinin in maamulka iska dhex wada arkaan gobolku wuxuu leeyahay degmooyinka saaxo wuxuu leeyahay tawfiiq wuxuu leeyahay jiriiman wuxuu leeyahay xarf wuxuu leeyahay guddogob wuxuu leeyahay gaalkacyo intaasoo degmo dadka ku dhaqani waxay wada degaan haddana magaalada gaalkacyo magaaladiina ammaan male degmooyinka gaarkaana waa ammaan weeye
jariiban waa ammaan waayo dadkaas ay tiree jariiban ee degan ayaa securitygeeda sugtay oo haddana waxay kula soo jeengarayaan kala mid yihiin gobolka mudug ayay kala mid yihiin marka waxaan garanayaa dadkaygu gobolka mudug ayaan waxaan garanayaa xalkiisa garanaya marka xaq baan waxaan u leeyahay xaqiisa inaan bayaamiyo madaxweynahana si individual oo personal ayaan ugu sheegay puntland gobolka mudug danta say ugu jirto in loo dhiso maamulkiisa haddii la iga maqli waayeyna xaq labaad baan waxaan leeyahay si cod dheera ku sheego gobolka mudug inuu u baahan yahay in hawshiisa laga dhigo mid dadka ay wada leeyihiin oo dadka wada dareemaan inay ka wada midkarsan yihiin maamul sababtaasaa keentay inaan ka hadlo waana xaq dastuuri waa xaq muwaadin waana xaq siyaasi maadaama gobolkaan waa kasoo jeeda dadka qaarkii waxay leeyihiin sida ay faallooyinka ku bixinayaan xarigaagii wax ka dambeeyey beesha aad kasoo jeeda adigu iyo beelaha kula dega deegaanka oo xiliyo kasii horreeyey sanadkan ay dagaalo dhex mareen hadalladaaduna inta badan intii aad xildhibaanka ahayd eed ahayd gudoomiye ku-xigeenka gobolka degmada gaalkacyo aad ba u cadcadaayeen ma la odhan kara halkaasaa lagaa galaaftay walaalow qofku de horta pageska facebooka iyo dadku waxay qorayaan ayagaa xorriyadooda uleh accountyada ayagaa private ufurtay ayagaana umadax banaan qof kastana aragtidiisa u madax banaan yahay laakiin waxa realityga iyo qofka aragtidiisu labay kala yihiin waxaan umalaynayaa qof beel ay soo xirtay iyo maaragtay iyo hadal beereed qofka maxkamad laguma geeyay aniga dawladda ay dacweysay madaxweynaha ila dacwinayay madaxweynaha ayaa amray xarigayga kabacdiina waxa weeyaan asagii ayaa maxkamadii matalaysay xeelalayntu oo lahawa u gaftay oo waa ku haystaan lahaa dadka telefoonada doonayay oo dhexdhexaadinta doonayay oo in la sii daayo doonayayna qofkay la hadlayeen oo diidayay oo shuruudaha ku xirayay oo u arkayay waxa weeye inaan khaldanahayna madaxweynaha ayuu ahaa marka realityga iyo qofka aragtidiisu waa kala duwan intii xilka aada haysay iyo intii aadan xilka haynba madaxweyne cabdiweli cali gaas marna ma kulanteen madaxweynaha waa madaxweynaha puntland weeye xafiisku fadhiyana waa xafiis dadka puntland ay leeyihiin muwaadiniinta puntland baan kamid ahay wax gaara oo special ah oo aan ka kulmeynana ma jirinin sabab gaaro aan xafiiska madaxweynaha fadhiyaan colaad gaar noo dhexaysana ma jirin dad isku wanaagsan welina isku wanaagsan baan ahay markii shaksiyada laga hadlayo xiriir fiican baa naga dhexeeyey si kasta aan xiriirno markii aan rabo inaan arkana si sahlan u arki jiray wixii tirooyi dalka hayana waan u gudbin jiray wixii dana ii gaarana waa ka wada hadli jirnay waana madaxweynihii puntland wey laakiin tillaabada uu qofku uu qaadayo iyo xiriirka shaksiga ahi labay kala yihiin waana madaxweynaha puntland dadku madaxweynaha yahay baana ku jira xaggee madaxweyne haddaba iskala qaadeen labadiina oo shaksiyan xarigan adiga shaksi ahaan lagu xirayo adoon xilligan mas-uul dalka aan ka hayn cabdi daahir walaal wax shaksi aniga madaxweynaha inoo dhexeeya ma jiraan madaxweynuhu siyaasada dalka ayuu hogaaminaya dastuurkii iyo hay-adihii sharci dejinta ayuu ugu sarreeyaa asaga ayaa dalka kan hamigu lahaa inuu gaarsiiye laga rabaa aniguna waxaan ahay muwaadin reer puntland hamigaasaan fiirsanaya waxaan u oomanahay in riyooyinka aan leeyahay dhaqso loo gaaro ayaan doonaya oo riyadaas reer puntland ay leeyihiin riyooyinkii marka madaxweynuhu asagaa darawalka ah gaarigii waana saarnahay gaariga marka qofna naftiisa u ogolaan mayo gaariga inuu qallimo darawalka hadduu si xawliga kuu kaxaynayo hadduu si khaldan kuu kaxaynayo baad leedahay gaariga ayari oo waxa weeyaan tartiibi oo wadada saxda nasaar baad leedahay marka madaxweynaha meel kale wax gaara isku haysana ma jirta waxaan isku haysana hogaanka dalka war madaxweyne waxaan kuu dooranay iyo waddadaan kaa filaynay markii la fiiriyo aqoontaada iyo dhalinyarnimadaada iyo caafimaadkaaga markii la fiiriyo waxa weeye meeshaad nagu wadid iyo isma keenayso isaan kaa filaynay marka taas baa meesha timid maaha wax kaloo gaaran iyo madaxweynaha noo dhexeeya ma jiraan yacquub marka maadaama aad tahay nin siyaasiya oo da-yar oo rajo fiican iyo mustaqbal fiican haddii eebaha wadi la ogolaado uu ka horeeya aad tahay maamulka puntland intii aad ku jirtay markaad indhaindhayso waxa uu ahaa 5 gobol iyo degmo maamulka 5 gobol iyo degmadii hadda waxaa ka haray magaalada gaalkacyo oo haafa gobolka nugaal iyo bari maamulka khaatimo oo dhan wuu ka baxay gobolka bari ama sanaag loo yaqaanaa intiisa badanna wuu ka dhex baxay maamulka puntland 3 gobol baa isugu soo haray marka miyaadan u arkin mustaqbalka dambe iyo rajada dambe ee puntland inay god kusii foorarto hadda ma u aragta adu sidaa walaal horta god kusii foorartay oran maayo laakiin waxaan dareemayaa fashil siyaasi inuu jiro in puntland maanta meesha aanu kusoo bilownay 17 sano ka bacdi halkii nala ka rabay iyo meeshaan joognay laba ay kala yihiin waxaan dareemayaa in midnimadii iyo wadajirkii dadku 17 sano ka hor iyo maanta meesha joogtay laba ay kala tahay waxaan dareemayaa usinaashaha puntland iyo dadku inay xorriyad u hadlaan iyo dadku inay ka hadlaan wixii dhibaatada dhexdooda iyo in dadku ay
sheegtaan cilladaha ay qabaan inay yaraatay 17 sano kadib inay yaraatay oo la oran karo 17 sano lasoo dhaafay marka qaybtooda sidan dhaanta la oran karayo taa waan qabaa laakiin oran maayo dalku waa foorara waxa weeye Cabdaahirow maamul buu dhiibayaa Cabdullaahi Yuusuf meel buu wax keenay Cadda Muuse waxbuu meel wax keenay waxbuu haddana hoos u dhigay Cabdullaahi waxbuu meel keenay waxbuu hoos u dhigay Faroole waxbuu meel keenay waxbuu hoos u dhigay Cabdullaahi Cali Gaasna hadda waa loo wada jeeday aniga kaliya igama baahna aan miisaamo meeshaan u joogno laakiin waxaan ku cadeynayaa 2014 hamiga aan qabnay inuu waxa weeye hingar ku dhow yahay waan ku hubaa 2 sano baa hartay waxa weeyaan ka quusanay raxmadda Ilaahay waa dhici kartaa maamulku inuu saxo laakiin 2 barka hadda aan soo dhaafnay 2 bar xaqiiqatan waxa ahayd qulubtayda ku reebtay waxa weeye intaas ku reebtay si shakhsi ah waxaan u aaminsanahay dalku maanta meesha ku socda inaysan 100% sax ahay si shakhsi ah waxaan u aaminsanahay midnimadii Puntland inay jilicsan tahay si shakhsi ah waxaan u aaminsanahay istuunka dadka iyo kala furashada dadka iyo qabaa'ilka istuunkooda iyo khilaafaadka qabaa'ilka iyo maaragtay dadku goboladu inay sii daciifayaan oo awoodda goboladii iyo maamulku sii daciifayo ayaan si shakhsi u sheegay oo aaminsanahay waxaan u aaminsanahay awoodii hay'adaha dawladda dastuuriga ee dawladda sida wasaaradihii inay noqonayaan kuwo maaragtay tayadoodii ay sii dhimanayso oo maaragtay xabsiyada qaybta sida maxkamadaha ay dalka sii gelayaan marka yacni waxaan dareemayaa inaan wadanku balance ay isku ahayn waxyaal meelaha qaybtoodna waxa weeyaan ay dhulka yaalaan meelaha qaybtoodna awood aysan lahayn marka qaybtood ay isku ciireen marka hay'adahaas way jiraan laakiin dalkii baa fooraray anigu ma qabo ma oranayo dalkan dad badbaadiyay dadka reer Puntland shacabka ayaa dad wanaagsan ah shacabka ayaa dadka talada ay ka goodo shacabka ayaa dadka markii xaaladdu xumaato u kaca marka waxaan aaminsanahay shacabkaas dalka ilaalsanaya oo fiirsanaya ilaahayna waa uu la jiraa marka shacabkaas ma rabo inaa ka kalsooni baxo ilaahay waa ku kalsoonahay shacabkaas dalkan dadka la soo hogaaminayay oo maalinta wax ka qaldamaan loo badbaado oo loogu cararo shacabkaas ku kalsoonahay in dalka kan ay u joogaan waagda dhageystayaal halkaad naga dhageysanaysaan waa madasha sigisi oo inta badan lagu falanqeeyo siyaasadda Soomaalida waxaana caawa noogu martay mudane Yacquub Maxamed Cabdallah oo ahaa dugii hore ee magaalada Gaalkacyo oo dhawaan xabsiga u taxaabay digreeto ama warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha sababaha loo xireyna waan jecelahay hadda inaan wax ka sii weydiino Yacquub inagoo weli wareysigeena sii wadana waqtigana soo gabagabeynayna si su'aalaha dadweynaha aan kuugu fasaxno intii aad joogtay maamulka magaalada Gaalkacyo aad kamid ahayd ama aad ahayd gudoomiye ku-xigeenka magaalada Gaalkacyo sidaynu la socono waxaa degan ama ka wada taliya 2 maamul oo Puntland iyo Galmudug idinkuna waxaa xukunteen qayb kamid ah magaalada Gaalkacyo awoodiinu ma wada gaarsiisay magaalada Gaalkacyo inaad gacan ku qabataan maadaama aad qayb kamid ah magaalada Gaalkacyo xukuntaan waa maxay amaan darada ku jirta ee gacanta ugu qaban kara weydeen amniga magaalada Gaalkacyo mardeedan Gaalkacyo oo dhan aydan xukumayn qayb yar haddaad xukumi kara weydeen Soomaha in dawladda iyo cid walba ay dhalinyadii soo jeeso maalin walba qof lagu dilayo maalin walba dhulkii dawladda la isku qabsanayo maalin walba reer hebel xabad u dhacayso Soomaha in awood la'aanta iyo karti la'aanta maamulkiina ka jira sidoo taa ma qaadanaysaa dhibaatooyinka ka jira mas'uuliyaddeeda walaalow horta waxaan umaleeyaa su-aashaasi waa kaasoo fakatay inay weydiisay maada rabine waa kuwa sheegay haddaan dhaliil lahaa iyo haddaan ammaan lahaa anaaba shaqadii ka tegay anoo 5 sano la doortay sanad markaa shaqeey anaaba shaqadii ka tegay waxaan ka hadlayaa maamulkii aad ku jirtay maamulkii dhamaysto inaan wax la qaban oo wixii la rabay aan la gaarin waaban cadeeyay waan sheegay oo dhaliil ayadaa ah oo isku filan talabaad walaal waxyaalaha Puntland iyo Galmudug dad wada weeye waa dad dani ka wada dhaxayso deegaankan wada degan yihiin waan kula qabaa 2 maamul intay wada fariisteen in aan waxa weeyaan laga fakarinin magaalada danta waxay ku jirto shacabkuna aan loo madax banaanayn inay dantooda ka wada fakaraan taas aad baan kula qabaa arrinta ay jirto waxaan ku hartay Puntland qayb xamgaa kamid ah maamusha 80% magaalada qayb kamid ayay maamushaa maamulka Galmudug walaalaheena ayaguna qaybtooda ayay maamulaan xuduud dheer baa u dhaxeeya xuduudkaas dheer waxa weeye ammaankiisa in laga wada qayb qaato la kaashadan way ahayd mar baa la isku dayay laakiin si fiican uma qabsoomin arrinta kale oo dhanka Puntland waa waxyaalaha qaybtoodna waxay ku awoodda dawladda dhexe weeye waxayna waa maamulka annaga maamulka degmada aan ahayn dal baa degantahay horumaray waad garan karaysaa waa isku mid adduunku awoodaha dawladaha hoose annaga walaadoo hoose waa limit weeye waxa weeyaan awoodayadana waxa jirta maadaama maamul goboleed uu yahay oo dalka central uu san ahayn awoodii heer gobol waa gobolkiyo ayaa la dul saaran
oo caasimadii gobolkan waan ahayn gobolkan waa nagala sii shaqaynaya meesha marka waxyaalaha khilaafaadka dadweynaha iyo qabaa'ilka khilaafaadkooda kala tabashadooda in la xaliyo dadka qulubtooda in la isku soo jiido waxyaalaha dowladda dhexe u yaallay ahayd annagana qayb baanu ka ahayn marka waxyaalaha gobolka ka dhacaya qaybna dowladda dhexe ayaa mas-uuliyadeeda lahayd qaybna annaga ayaanu lahayn marka qaybteeda inaanan gudan anaaba caddeeyey anaaba xilka ka tegey anaaba raaligelin bixiyey inaana sanad aan joogo waxba aysan qabanin hadda qaybteeda dowladda dhexana weli waxaan umaynaya way soo socotaay oo madha markeeda iyaduna aqbali doontaa inaysan waxba qaban madaxweynuhu dhawaan wuxuu magacaabay xildhibaano cusub oo u magacaabay magaalada gaalkacyo markuu kala diray guddidii hore ee magaalada gaalkacyo taladeeda haysay khudbadaadiina waxaa ku jirtay oo si toosa telefishinada looga daawanayay iyadoo weliba qurbaha aada looga daawanayay dadka qurbaha ay aada xiiseynayeen inaad madaxweynaha laftiisa aad ku tilmaantay inuu cadaalad darro sameynayo oo qabiil adeegsanayo arrintaa seed u aragtay adiga kula muuqata hadda intii lagu xidhay kabacdi golaha deegaanka cabdidaahir oo halka kaa saxo golaha deegaanka madaxweynuhu dikraato kuma soo saare golaha deegaanka dadkaa soo doorta madaxweyne waxaan ka hadlay maamulka gobolkii ahayd inaan run sheegay inaan been sheegayna dikraatadii madaxweynaha ee 4 bisha Julaay raadi halkaasaa ka arkaysa inaan saxanayo inaan khaldan mustaqbalka dambe ee Puntland maadaama tahay nin siyaasi oo mustaqbal iyo rajo fiican kale Puntland waxaa jira kooxo kacdoon military oo aan cidna ka qarsoonayn caalamka dhan og yahay oo afrikaanku ogyahay igada ay og tahay reer Puntland ay ogyihiin Soomaalida kalena ay ogyihiin oo ka socda gobolada bariga deegaanada maxaad u saadaalinaysaa mustaqbalka dambe ee Puntland sidee wax loo xallin karayaa kala xilligan Puntland mustaqbalkeeda waa fiican yahay ammaan iyo midnimo iyo waxay ku gaaraysaa 2019 doorashada inta la gaarayo wada jir shacabka reer Puntland inay tabtaan oo dadku wax tabtaan oo ay dhibaatada iyo waxay dareemayaan ka tabtaan xaq bay u leeyihiin ayaguna xaq uma leh inay amni darro sameeyaan oo khalkhal ka geliyaan oo ay foodo ka dhigaan laakiin qofku si dastuuriya oo madax bannaan ayuu codkiisa usoo jeedin karayaa waa mudaharaadi karayaa waxa weeye wuu qaylin karayaa dad buu dirsan karayaa dooduu furi karayaa laakiin qorigu xal Puntland waa 17 sano ka hor ayaan qoriga go-aan ka gaarnay kacdoonada jira waxaan rajaynayaa insha Allah inay nabad ku dhamaan doonaan dadka waa walaalo ayaga ay jecel shacabka ayaa dowladda ka jecel ammaanka iyo nabadda ka jecel oo uga firfircoon uga shaqeyn dowladda hadda jirta waxaan ugu baaqayaa 2 sano iyo barka dalka uga hartay waxa weeye inay dadaalaan oo ay ka shaqeeyaan sida ay dalkana u gaarsiin lahaayeen bal wixii kale iska daayay in dadkan oo intii loo dhiibay 2019 ka gaarsiiyaan intaas baan hadda kulli rajada aan ka qabaan waa inta kaliya intaasaan ugu baaqayaa laakiin marna aniga walwal kama qabo Puntland inay burburayso oo xabad isku qaadanayso oo la kala yaacayo taa cabdidaahir marna ma qabo habeena niyadeeda kuma soo dhicin qof kasta oo xaqiiqda ogna wuxuu ku kalsoon yahay shacab Puntland ilaahay siiyay ilaahayna Puntland intan soo gaarsiiyay ilaahay inta gaarsiiyay baa joogo oo jira oo xayi ah dadkii caqligoodu shaqeynayay baa iyagana nool oo nabadda jeclaa oo midnimada jeclaa adigoo ku siinaya 30 sakan oo aad kula hadasho taageerayaashaada ama taageerayaasha reer Puntland ama kuwa adiga beel ahaanba ku taageera ee banaanka ka hadlayay iyo cid kasta oo kamid ah reer Puntland oo waliba caawa in badan oo kamid ah ay khadka taleefanka kugu dhageysanayaan maxaad ugu baaqi lahayd horta waa mahadsan tahay waxaan jeclahay inaad xirmayso maadaama aan marti ku ahay anigu horta walaal beel gaar ma matalo beel gaar ii taageersan ma jirto hadda beesha carabka ku taageersina muwaadiniinta Puntland bay kamid yihiin muwaadiniinta Puntland ee qaybtoodna beesha waxay ka tahay aragtaan iga soo horjeedaan qaybtoodna aragti la arkaan anigu muwaadin reer Puntland ahay dadka reer Puntland baan anigu u taagnahay inay dowladnimo helaan oo hamiga aanu lahayn ay u shaqeeyo oo dowladnimada aanu doonaynay iyo horumarkaanu raadinaynay aanu gaarno marka horta sidaas waa ka cudurdaaranayaa beel gaar ah igu riixire muwaadin reer Puntland ahay dadka reer Puntland waxaan anigu u sheegayaa waxa weeye walaalayaal waxaan u baahanahay inaan noqono bulsho ogol inay wada hadasho wax kala tabato wada doodo wax u sheegto dadka moodaya inaan target ku ahay ama wax ka sheegayo qabiilka madaxweynuhu maalintii la doortay 2014 ayuu wuxuu ka tagay beel waa madaxweynihii Puntland weeye waxaan la hadlayo Cabdiwali Cali Gaas maahan shakhsiyan iskuma haysano shakhsiyan xaasha lillahi wuxuu leeyahay xaq diini ah iyo mid dastuuri ah shakhsiyadiisa oo xadgudbinin xafiiska uu fadhiyo ayaa anigu focuskaygu yahay xafiisku si reemo u shaqeynaya xafiisku cadaalad ma sameynaya xafiisku horumar ma lagu wadaa xafiisku midnimo ma ka shaqeynaya taas baan ka hadlayaa waxaan aad uga xumahay baraha bulshada waxaan ku arkay oo ah
in dadka qaybtooda u arkeen inaan beeshooda horar ku ahay waan jeclahay dadka walaalaha ee gobolka mudug la degan waan ku faanayaa la-aantoodna waxaan aaminsanahay mudugna inaysan jirin puntlandna aysan jirin sharaf iyo karaamina leeyihiin laakiin beel kursiga dowladda ma hayse madaxweyne ayaa haya waa qof shaksi ah dastuurka dalka iyo kitaab ayuu ku dhaartay kitaabka iyo dastuurkaas ayaana kula xisaabtamaynaa kitaabka ku dhaartay kitaabka ilaahay ah iyo dastuurka uu inuu ilaalinayo oo kitaabka uu ku maray ayaana walaalayaal kula xisaabtamaynaa marka aan gaarno oo maskaxdayda 17 sano ka bacay ha ka xorowdo in markii madaxweyne laga hadlo ay beeli xanaaqo ama qof u arko inay beel taarget lagu yahay dadka reer Puntland waxaan u sheegayaa dadku waxay xaq u leeyihiin hadday wax tabanayaan inaysan uqdad qaadin oo hoos u gooxinin oo annaga maxaan ka dabcaysan dhihinin si loo biskoodo oo la isku arko wixii khaldan oo dadku walaalo u noqdaan in la hadlo waxaan ku faraxsanahay markaan hadlay ka bacdi golay deegaanka gaalkacay in 4 xubnood lagu soo kordhiyay oo beela ka maqan 4 xubnood lagu soo kordhiyay waxaan rajaynayaa marka dadku inay fahmaan inay caafimaad tahay inay hadlaan meesha wax ku qarsan lahaayeen caloosha ayagoon amniga khalkhal gelinayn ayagoo qori aan qaadanayn dowladana xaq waxaa lagu leeyahay cabasho dalkeena ka jawaabto oo ay waxa weeye ay dhageysato oo ay u dhuglaato dadka ayaa xaq lagu leeyahay marka walaalayaal dowladnimada aanu dhankeeda u fiirino oo waxa weeye niclaysiga iyo aflagaadada iyo dadku waxa inay istuhmaanta aan iska dhigno shacab baa wada nahanay 3 milyan iyo barba dad Puntland ku nool 3,000 kilomitir isku meero weeye waxa inoo taala inaan fakar war caafimaad ma haysanaa waxbarasho ma haysanaa ammaan ma haysanaa horumar ma gaarnay kaabayaasha dhaqaaluhu ma noo dhisan yihiin dhaqaalaha hagee maraya haddaanu taa aan helin qofka aan u dooranay xilka waxaanu leenahay waxba maadan qaban dhaqaale maadan keeninin caafimaad ma hayno waxbarasho ma hayno waxa weeye bulshada iyo midnimo ma hayso taas baan oranaynaa marka qofkuna yuusan u noolaan inuu cudurka la geliyo ha u noolaado inuu ka fakaro dantiisa guud dantiisa gaarka asoo ku dabaqay danta guud oo danta gaarka waxa weeye inaad caafimaad inaa waxbarasho hesho inaad nabad hesho waxaana ay ku xiran tahay inaad si guud u ilaaliso taa ku xiran tahay marka dadka waxaan ugu yeerayaa midnimo iyo inay fakaraan dantooda inay ku jirto in dalka kan dowladnimada la ilaalsado cid baanu u dooranay anigu shaksiyan waxaan ilaashanayaa dadka waxa u doortay war maanta rinjigaad ka qaadeen jambigaad ku dhufateen jug baa u geysateen toosiya xaq baana u leeyahay dastuuri ah macnahaygu ma aha musharax ahay ama aan doonayo siyaasad kale waxa weeye xaqa muwaadin ayaan u taagnahay ah in wixii dadkan u igmaday aan doortay cashuurta laga qaado salariga mushaarka ku qaata shaqadii aan ugu talno aan ka filayay ma ii qabteen mise iiba qaban dadka kalena inay halkaas fahankoodu gaaro ayaan ugu baaqayaa muwaadiniinta Puntland waa hagaag halkaad naga dhageysanaysaan waa madasha sigisi oo inta badan lagu falanqeeyo siyaasadda Soomaalida waxaa caawa martino ahaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee magaalada Gaalkacyo mudane Yaaqub Maxamed Cabdalla oo khadka taleefanka aan ku wareegsanay isagoo jooga magaalada Garowe waxaan haddana khadka taleefanka ku wareejinayaa gudoomiyaha madasha iyo sidii su'aaluhu ay noogu bilaabin lahaayeen asad taleefanka ku furay aad baad maasantay gudoomiye waa maasantay aad iyo aad cabdiar waa ku salaamaya waana kaa mahadcelinaya waraysiga xasaasiga la yeelatay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada Gaalkacyo Dr. Yaaqub insha Allah waxaan u gudbinaa saan hore ku sheegnay barnaamijka qaybta labaad oo dadweynaha Soomaaliyeed oo ku xiran madasha sigisti the last 3 days inaga codsanayaan inay codkooda ama aragtidooda ama su'aalaha qabaan haw badna ku Puntland inay weydiiyaan marka caawa madasha sigisti fursadaas way sharaftay insha Allah marka waxaan codsanayaa cidda daneynaysa qaabka madashu su'aalaha u qaato oo ah inaan link idin furno qofka rabana inuu mataqaana noqdo qof isagu mataqaana frental u soo dhiibtay su'aashiisa marka qofka raba inuu hadda jaaniskan weli aan siiyo inuu sidii mataqaana qaabka su'aalaha loo wada linka soo galo qofka aan su'aasha weydiino maadaama dadku badan yihiin hal ama laba qof insha Allah inuu su'aalaha kusoo koobo soo aruuriyo lama baahna macnaha sharaxaad iyo analyze iyo taariikhi in su'aasha mataqaana aragtida iyo waxa qabtid oo koobana soo dhiibtid insha Allah maamulku mar walba isagoo insha Allah soo bixi karaa wada hadli karaa su'aashan uu qaadanaya Dr. Yaaqub inkastoo doctor macnaha sheeg ka cudurta hadana magacaas la qabsanay marka waqti baan ugu qaadanay sababtoo inuu naga go waa ka cuduraya Yaaqub su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo anigu asadna Suudi oo xiriiriyaha madasha sigisti degan gobolka Ohio magaalada Columbus su'aashan ku weydiinayo waa hal su'aal oo laba qaybood A iyo B ah su'aasha koowaad waxay tahay waxaan ogsoonahay in lagu xiray hadal asxaabta ka jeedisay Puntland
waxaan aragnay niman siyaasiyiin oo mucaarada qaar iyo macnaha hub haysta mataqaanaa ama qoryo qaatay ama banaanka u baxay oo aan la xirinin oo la soo qabanin adigu laakiin waxa tahay ninkii ugu horeeyay mataqaanaa isoo saxaafad ka hadlay la xiray xabsiga loo dhaadhiciyay marka see isku qabanaysaa markaa fiiriso hogaanka Puntland waxaa maamula madaxweynaha Cabdulla Cali Gaas waa nin aqoon-yahana oo nin wasarena ololihiisa waxa ku jira saxaafadda inuu xor siinayo dhinaca kale wasaaradda arrimaha warfaafinta ee Puntland isna waxaa haya wasiir macnaha isna waxaan jira wariye labadii macnaha warfaafineed xagga dawladda iyo xagga wasaaradda laba nin oo macnaha sheeg dhaqanka iyo westernka iyo saxaafadda xorta yaqaanaatay marka muxuu ugu duwan yahay xarigaagu siyaasiyiinta hore hadalkaagu waa hadashay hadaladii hore siyaasiyiintu hadli jireen oo la xiri jireen muxuu ugu duwan what's so special waa maasan tahay xiriir horta su-aashaas aad waxay ugu habboonayd madaxweynaha Puntland aad ugu habboonayd hase ahaatee waa wax dadku wada arkayeen maxkamadda anigu aan saarnaa dhacdo caan oo la wada ogsoon yahay baa ka dhacday oo maxkamadaasi ilaa hadda cid ka hadashay iyo warqad raaligelin looga bixinaya iyo tallaabo dadka laga qaadayaan aan arag baa maxkamadda ka dhacday aniguna waan saarnaa oo 3 maalmood baa maxkamadda weliba culays lagu hayay oo loo diiday inay go-aan gaadho oo waxa weeyaan pressure la soo saaray waxaan ku hubaa waxaasoo idil waxa dhacayo waxaan bulshada u leeyahay war bulshadu ha fiiriso meesha danteeda ku jirta ee qabiilka ha laga gudbo malaha horta waxaan leeyahay walaalahaas ugama xumi intay hadleen ama tilaabo qaadeen ama ficil ay sameeyeen aan la soo xirinin malaha calafkoodaan u gelin in la xiro oo waxa weeye laakiin dawladda ceeb ku tahay dadka inay aysan qof hadlay oo aan hubaysnayna la xiro dadka qaybtoodna aan la xirin saa sheegaysid dawladda taa ceeb ku tahay midda labaad waxaa dawladda ka mid ah xubno dastuurkii dalka inuusan jirinin oo hanjabay oo nabad darro ku hanjabay oo dil ku hanjabay oo dastuurkii dalka shuruucdiisa laalayba oo kaba dhigay meel fowda ka dhigay ayaguna dawladda ka tirsan yihiin marka waxay taas ku tusinaysaa si guud dawladda hadda jirta xorriyatul qowlka iyo Puntland dadkeedu inay xor yihiin oo dalku dal military uusan ahayn oo dadku uusan iskaysarnimo iyo dadka afka la qabto iyo dadka ma hadli kartaan la yiraahdo dawladda tan inay taa ay ka doorbiday wixii dastuur ku qornaa inay tahay anigu marka waxaan is leeyahay madaxweyne Cabdulla Cali Gaas male wax horta marmarsiyo ah waa marka koobaad lama oran karayo madaxweynaha waxa uu ka dhacaya waa khibrad yari oo wuxuu ahaa nin ra'iisul wasaare soo noqday xafiiska Puntland ka hor lasma oran karayo aqoon darro wuxuu ka dhacaya oo waa nin professor oo jaamacad ka soo dhigay oo muddo dheer soo dhigay oo dhaqaalaha ku takhasusay dhaqaalaha Puntland maanta ogtiin meesha uu maray lasma oran karayo khibrad yari baa haysta oo dal horu maray oo siyaasadihiisa iyo ajandayaashiisa intuu guuleystay qaybo ka mid ah guuleysteen haddana caalamka qasaya ayuu ku noolaa in badan ku noolaa wuxuuna akhrinayo qof involve ah oo siyaasadda la socda ayuu ahaa lasma oran karayo waa qof oday waa da la oran karayo waa caafimaad waa 40 sano jir da aan lahayn oo caafimaad oo fida weeye oo hal problem uusan haysan marka waxa la maxay horta daar uu leeyahay ma jiro xataa waxa weeyaan dad wanaagsan ayaa la shaqeynaya oo reerka gurigiisa xataa gabar professorada oo wanaagsan oo waxa weeye dadka Puntland meel uga taala ayaa iyadana xataa advice guud ka qaadan karaya marka waxa sariirta madaxweynuhu maanta waxa uu sameeynayo oo dadka in la caburiyo iyo inuu xarig danbido oo wax dhabta markii loo sheego uu dhabta ka gudto oo maaragtay ka caroodo runta ka caroodo waxaan is leeyahay isma qabato weeye marka waxyaalaha jira aan kuu sheegay ka mid tahay laakiin waxaan ku kalsoon oo ku faraxsanahay waqtigan inuu dhow yahay dalkana dastuur iyo sharcigu way u guuleysanayaan aaminsan aad iyo aad waan ka mahadcelinayaa su-aasha sida faahfaahsan oo qofkana igu soo jawaabtay insha allah waxaan u gudbayaa insha allah dad badan oo insha allah igu aan jecla waqtiga nagu socdo daradiisa barnaamijyadii isku xiga inaan 2-3 qof insha allah aan soo daayo waxaan rabaa inaan siiyo fursada ugu horeysa aan siiyo afhayeenka gobolada bari ee Puntland Zakariya Xaaji Cali oo isagu insha allah iyo si khaas igu salaan ma maqlaysaa Zakariya si fiican ma maqshaa sadnaadi maag waa ku furan yahay su-aashaada Yacquub insha allah adoo soo koobiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة دماتي موادي السلام عليا يعقوب من سيجارة السلام عليا ما شاء الله. قرت سؤالي بدنا وكجوابي وريت في عنوان سيادي الدولات المهتمية لكن سؤال أنا جو عن قوي يعقوب وحوي ولا المدام almost day 8 سنة يقول لك السنتحي قبيلنا يكون السنتحي قبيلة إسكوي من أي تحي هدي معمول ذي هرك معمول كهذا الجودة أي كفي الجروبين أبناء الوضع كجوكتو أي كفي الجروبين إن أي قبيلة سشرف له وفنان له أي الله الله أما أي وحوجة رأسيا أما أجندوه أي وجدان
so qabiiladu xaq uma lahan maadaama la ignore gareeyey ila waxaa tiri qoray iyaan waxba lagu raadinay so qabiiladu xaq uma lahan intay isuubeeyaan inay wax xaq u leeyihiin ay raadsadaan so xaq uma lahan miyaysan istaahilin maadaama guryahooda lagu weeraray iyagoon ciidan haysan oo la caburiyey oo loo diiday xataa inay hadlaan oo adigu aad ka mid tahay shacabka puntland caburintaas darteed awoodooda inay banaanka soo dhigaan aysan nabad wax ku raadin maadaama maamuladii hore iyo maamulkaanba ay ka siman yihiin dhaqankan hadda soo jireenka ah oo dadka in la caburiyo isimada aan la xushmayn waxyaalahaas oo dhan marka miyaysan maadaama aad tiri in xoog wax lagu raadiye ma ahan miyaysan istaahilin ila dadka ilaa how long ba la caburitaan marka miyaysan istaahilin marka in ay awoodooda banaanka soo dhigtaan waana ka baxay aad iyo zakariya aad baad mahadsan tahay walaal si gaaran kugu mahad celinayaa waana kugu bogaadinayaa maaragtay kaalintaada ah inaad xuquuqda aadanaha iyo dadka waxa weeyaan laga xaqdaraya inaad u doodo aad baan kaga mahad celinayaa garabkii markaan xirnaa aad bixisayna waxaan rabaa inaan si guud kugu mahad celiyo aad baad mahadsan tahay zakariya walaal arrinta qoriga anigu waxaan qabaa walaal zakariya arrinta qorigu inaysan xal ahayn aad baan ugu celcelinaya zakariyow markay nabadi jirto markii ay waxa weeyaan isku socod jiro waa la wada hadli karayaa maalinba waxbaa la sixi karayaa waxaad ogtahay zakariyow tabashadu maalinba meel bay joogtay maanta ma oranayo qabaa'ilku boqolkiiba boqol ma qanacsana dhihi maayo laakiin waxaa jirta maalmo qabaa'ilku ay qanacsanaayeen wax roonaayeen baa jiray maalmo qaybtoodna qabaa'ilku hoos bay aadeen tabashadooda hoos bay aaday oo cirka isku shareertay oo qaar baa saaxadaba laga waayay waxaan is leeyahay marka isku celcelis iyo wadahadal iyo iscanaansi iyo isku qaylin iyo waxa weeye isjugaysi iyo wadahadal iyo waxa weeye iyo in la wada doodo ayaa waxay ka dhowdahay oo ka xal fiican tahay ayaa is leeyahay qori hadduu yimaado zakariyow meesha waa lagu kala tegayaa midnimana jiri mayso dowladnimadana waa burburaysaa marka inay dowladnimada burburto waxaa nooga dowlad maamul la-aan jirta soomaaliya ayaa noogu filan koonfurta soomaaliya ayaa example fiican inoogu filan sagaashanka waxay soo martay annaguna ma aha inaanu malaa'ig ahayn ama dadka ka seexnayn maahe ilaahayda wuxuuna waafajiyay 1998kii inaanu maamul dhisano oo maamulka aanu dhisano waxa weeyna waa na gaarsiiyo inaan soomaali weyn ku sugno inuu na gaarsiiyo kaas inaan marka hagaagsano oo cilladaha ka saarno oo turxaan bixida aad baan kula qabaa dadka xaqooda wax tabashada iyo inay dadka qaybta wax ka maqan yihiin ma duubsiinayo xaqooda xaasha lilah xaq bay u leeyihiin inay tabtaan xaq bay u leeyihiin wayna jirtaa qabaa'iladu inaysan wada qanacsanayn boqolkiiba boqol bay jirtaa oo buntan u baahan tahay in wada tashi lagu laabto inay u baahan tahay laakiin qoriga mana dhiirigelinayo xal looma arko aad iyo aad waa su-aal kooban oo absolute mudan qiimaynteeda leh insha allah adoo raalli asagna waxaan rabaa inaan u sheego saaxiibkiis dacwo professorka korka iga saaran waana ku salaamaya isagana waa mahadsantaa dacwo aad buu mahadsan yahay dacwo aad buu dacwo laftismaad buu furan yahay hadduu salaa codkiisa waa maqan masha allah dacwo waa hadli kartaa maamulka waa kufasaxa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu yacquub oo ku salaamaya waana ku dhegeysanaya intaasaan uga baxaya su-aalaha ragga ah iyo su-aalaha weydiiyaan khabiirka okay waxaan siinayaa insha allah indabur baan siinaya insha allah war yacquub gudoomiyihii hore aad baan usalaamayaa gudoomiyihii hore degmada galkacyo aad baan usalaamaya yacquub isagna waa mahadsan tahay gudoomiye waxaan waraysigan aad baan ugu faraxsanahay si aad iyo aad u fiican ayaad u hadashay magaranaysaa dastuurka iyo dowladnimadu inay wax kasta ka weyn tahay wax kastana lagu saxi karo si gobonnimo leh ayaad u hadashay yacquub oo mas-uul ku jirto waxaan ku weydiinayaa wax yar yacquub walaala inaad nafaasiisid baan jeclaan lahaa nasa galkacyooda baan ahay waana ku taageersanaa maamulkaaga iyo sidaad u hadashay waxaan rabaa maxkamadda inaad nafaasiisid wax yar 4 bilood baa lagugu xukumay at the same time macnaha dembigiina waa lagugu waayay oo xagga xorriyatul qowlka xaq baad u leedahay maxkamadda ku tiri marka waxa aad iibsatay oo 4 bilood lagugu xukumay ma laba dembi oo kala duwan maxkamadda kugu soo eedaysay marka inaad bal dacwo u socotay iyo nafaasiisid wax yar baan jeclaan lahaa walaal aad baan aad waa mahadsantahay dabuur walaal waan ku faraxsanay waan ku maqlo walaal maxkamadda 3 qodob bay igu soo eedaysay xaraarintu maxkamadda lagu soo hortahay aflagaado madaxweyne kicin dadweyne iyo sharaf dhex madaxweyne 3 qodob si wada jira ee maxkamadda u laashay inaan madaxweynaha aflagaadayn meesha baa laga sheegay oo codka la dhageystay codkii ku jirtay kicin dadweyne aan sameeyna codkayga ayay ku jirtay oo nabad aan ku baaqay bedelkeeda sharaf madaxweyne meel uguma dhacin oo madaxweynaha dikreetadiisa meesha taalinaa been ka sheegay
hase ahaatee maxkamaddu 4 bilood bay uga xukuntay saa u fahmi la-dahay sababta xukunku uu yahay baana u fahmi la-ah laakiin maxkamaddu markii xukumaysa 4 bilood uga xukumaysay aayad bay soo qaato daniga ku saabsan dani inuusan jirinna maxkamadii waxaan la dhex fadhino oo lawyerkay gacanta ku hayay dekretadii madaxweynaha oo madaxweynaha waxaan ka sheegayay waxa ay warqad saxa uu soo saaray ayaa anigu waxaan ka bixiyay comment ayaan ka bixiyay waxaan aragti baan ka bixiyay madaxweynuhu warqaduu soo saaray marka saa u garan lahaday waan u garan lahay laakiin de go-aan maxkamadeed buu ahaa in la qaato khasab ah aad iyo aad waa wareerka laftigeena macnaha madasha 3-4 days aan ka doodaynay waxay macnaha loo gatay sheeg mudanuhu aad iyo aad waa ku salaamaya nabur oo niga galkaayo su'aashina ku diin waa jecela brother maxmud ha ku soo next aad iyo aad yacquub oo ku salaamaya maxamuud baa la yiraahdaa waxaan ahay nin reer Puntland gaar ahaan reer Muduga waliba isku deegaan baynu ka soo jeednaa galbeedka gobolka Mudug su'aalaha inta badan waad ka jawaabtay laakiin waxaan u jeedaa inaadan ku qanacsanayn hadda siyaasadda Puntland qorina xal ma ahan baa tiri absolutely waa ku raacsanahay hadalkiina waa lagu diiday waa lagu caburiyo xabsi baa lagula tiigsaday muddo xiray waliba hadal aad u qurux badan oo wax gafi aysan ku jirin aan si fiican u dhageysanay adoo ku hadlay haddaad hadda damcdo inaad sii wadana kolley wax ka daran baad wajihi doontaa umalaynaya marka sideed u aragtaa su-aashaydu waxa weeye sideed u aragtaa maadaama dastuurkuna inoo ogol yahay inaynu deegaanadeena maamul ka duwan kan Puntland aynu u samaysano oo aynu dawladda dhexe ee federaalka ama la hoos tagno ama maamulada dariska inala ah aynu ku darsano waa haddii Puntland dee hadalkiina laysu diiday siyaasadeediina aynan ku qanacsanayn oo sida aadan adiguba ugu qanacsanayn ummad badan oo reer Mudug aysan ugu qanacsanayn siyaasad ahaan marka sidaad u aragtaa arrintaas inaynu si gooni ah isaga taagno maamulka Puntland oo 18 sanaba aynan ku qanacsanayn haddaynu reer Mudug especially galbeedka gobolka Mudug su-aashaydu sidaas weeye yacquub adoo mahadsan waa mahadsan tahay horta walaalo horta Mudug waa mudug waxa weeye gobol weyn buu ahaa 2 degmo ayaa dhanka galmudug ka jirta Puntlandna Soomaaliya hore 2 degmo ayaa dhanka jirta iyo caasimadii oo gobolka Mudug oo waxa weeyaan la wada degan yahay wax horta galbeed iyo bari leeyahay ma jirto aragtida dadka aaminsan ma ihi mana taageersani mana qabo waxa soo hartay Puntland 1990 ayaa la midoobay waxaana la dhistay dawladda Puntland sidii maalinta loo dhisay waan joogay oo qof nool baan ahaa Puntlandnimada ugu qanacsanahay Puntland ana iskale waa dalkaygii waa dadkaygii waxaan ku qanacsanahay Puntlandnimada iyo dawladnimada Puntland baan ku qanacsanahay laakiin waxaan dhaliilsanahay waa si wax u wada maamulkan muddada kooban la doortay 5 years baa la doortay 3 sano ku dhawaad iska batagtayba maamulka 2 sano waxa dhibaan u dhaliilsana laakiin Puntlandnimada shakiga ma jiro dawladnimada Puntland shakiga ma jirto baraare iyo horumar iyo meeshii maamulada kala dadka jira iyo Soomaaliya iyo gobollo kamid inaan dhaano ayaan aaminsana meel uga ma socdo Puntland cid gaar oo hadda aan ogahay oo tastaa ka wada qaadanayna iyo cid meel u socotaan ogahayna ma jirto marka iga raalahow aragtida dadka aaminsan ma ihi Puntlandna waa dawladda ku qanacsanahay dawladnimadaas baana doonayeen in hagaajiyo qurxiyo waxaan u qeylnay waa decoration weeye waa qurxin weeye ma aha inay meeshu baaba tahay oo wax u baahan tahay in la kala tago iyo in go'do iyo in qabta ma aaminsani waxaan ka hadlay waa qurxin weeye waa qalfooftu waa dhisan tahay jambadu waa taagan yihiin guriga daaqadu leeyahay albaabu leeyahay waa dugsi laakiin waxa u baahan in la qurxiyo u baahan yahay in lagu wada qanco oo dadka ku wada qurxo meel qurux badan oo dadka soo jiidanaysa ay noqoto ayay Puntland u baahan taas baan ka hadlayaa jambiyada qaybta hal jabiye ka hadli maayo dadka galbeedka Mudug ay sheegaysid haddaad beel xataa ka hadlayso Puntland la dabar buu yihiin difaaceeda iyo qaal bixinteeda iyo waxbarashadeeda iyo diinteedaba midnaba horbar buu yihiin wayna jecel yihiin reer Puntland way jecel yihiin dadka Puntland marka daa Puntland rest baan ku kalsoon Puntlandnimada aad iyo aad waa ka xumahay anagoo aan sii wadi karnay barnaamijka sababtoo ah kaarka insha Allah baa laga yaabaa inuu noo go anytime marka waxaan siinayaa insha Allah inaan saaxiibanahay oo isagu aad iga cusubay inuu salaamo su'aal la weydiiyo bal insha Allah ugu dambaysan uu qaato ananu insha Allah waxaan noqon doontaa insha qofka ugu dambeeya oo doctorka taana fasaxinin maqlaysaa ananu oo maqlaysaa inaadaro insha Allah وران صدني لحقف بعد عن تاجتي مركا ان شاء الله قارك مركا سؤالين نقول ان شاء الله بس ان شاء الله سوق قرانا تنافسين
niyo su'aal ma jirto waan u hambalyeynaya aad baan ugu hambalyeynaya anigu waxaan kasoo jeedaa gobolka Sanaag marka waxaan leeyahay hambalyeyn leeyahay ninkan waxaan mataqaanaa ku boorinayaa qof kasta mucaarid sida ninkaas soo hadlo marka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ninkaan waa nin aad u bisil runtii hogaamiye u noqon karo Soomaalida marka waxaan leeyahay hambalyeyn iyo aad baa mahadsan tahay aad iyo aad waxaan filayaa mataqaanaa reer Sanaaga macnaha buntlandnimada aaminsan aragtida mataqaanaa aan anagu isna galdaga kusoo jeedo nin buntland macnaha waxaan aaminsan tahay in lawada decorationka swap sheega lawada quruxsado marka insha Allah aan anagu waa ka mahad celinaya taladaas iyo insha Allah hambalyeyntaas waxaan siin doonaa insha Allah fursad ugu dambaysa Yacquub waxaan rajeynayaa marka waraysan ka coddaarnay dadkii rabay Soomaaliyeed inay su'aalaha weydiiyaan xagga mataqaanaa barnaamij kale oo nagu soo socdo awgis iyo weliba kaarka oo meesha jooga Soomaaliya tahay oo lacag timeka nagu socdo marka insha Allah saacad baan insha Allah ku jirnay barnaamijka hadda gabagabadii waaye Dr. Yacquub insha Allah minidii ugu dambeysay dardaarankii aan uga tagaysay kusoo dhawow aad ma santihiin marka koobaad midnimo aan kaga tagayaa midda labaad walaalo guddo kaliya ay ugu koobine bandarbeela iyo dad baa iga jira halka iga jira aniguna waxaan ku yiri ku sheegay war anigu qabiil gaar ah matalay reer Puntland baa matala ninka Sanaaga ila soo hadlaya waa dhul aan jecelahay oo qurux badan oo waxaan ma tagay Calmadow hadaftidan tagay Elbuudan tagay Baran baan tagay Dhaxar baan tagay dalku waa dalkaygii waxa weeye xudun baan tagay waxaan tagay Kalshaale Buuhoodland tagay dalku waa dalkaygii waa dadkaygii weeye cid gaar ah oo waxa weeye taagada aan ku ahay ama cid gaar aan leeyahay reer hebel baasaan oo fiican ama xun aan leeyahay ma jirto midda labaad halka waxaan ka sheegay wixii aragtidayda ahaa waxaan codsanayaa maamulku hadduu soo daabacayo dadkayga inaan waxaan lagu darinin waxaan laga jarinin oo waxa weeyaan dadkuna aysan u dhigan siday jecel yihiin qofku wuxuu yiraahdo ayuu yiri waxaan iri waa waxaan aaminsanahay waxaanan walwal iyo walaacan ka qabin kana xumayn weeye oo aan ku qanacsanahay kuna kalsoonaysan u leeyahay inay tahay wax sax oo madax banaan aan cidna u gafinin dadka dhageysanaya iyo dadka dhageysan doona waxaan ugu baaqayaa aragtideedaan hadlay aragti qabiil iyo aragti cilidku ama hadlinin qofkii dhibsada oo su'aal u baahan wayla soo xiriiri karaya laakiin qofkii hadee waxa weeyaan iski wax kaga sawirtaa waxaan leeyahay waa ku cududaaraya waxa dhici karaysa marxaladda Soomaaliya maanta ku jirta inaad qabto ummadda reer Puntland waxaan ugu baaqayaa inay dalka wada leeyihiin ay wada lahaanshaha aaminaan wixii khaldan ayay gacmooda ay ku sixi karayaan cid gaar oo cirka ka soo degayso saxaysa aysan jirinin ayaga waxa weeye ilaahina ma bedelo qowm ilaa iyagu ay isbedelaan marka isbedelka annaga ayuu nooga baahan yahay innaga ayaan u baahan inaan isbedel isku samayno naftayada dalkana anagu isbedelka nooga baahan waana mahadcelinayaa dadka intaan leego Soomaaliya jaalis liisiyana la hadlo maamulka Cabdinaasir iyo xiriiriyahana aad iyo aad baad u mahadsantihiin boqolkiiba aad iyo aad waa ka mahadcelinaynaa waa mahmaah ama halkudhiga mastaan aan leenahay meel walba qof walba Soomaaliyeed mas'uula oo tabanaya ama raba inuu ummadda Soomaaliyeed qurbaha waliba ku xiranaan jaaniskan u siino oo ku faraxsanahay insha Allah waa ku salaamayna dabcan waa soo sheegtay way waraysigan haduu dhaafo insha Allah barnaamijna ku soo celin doona wixii saacadahan ka dambeeya tomorrow morning insha Allah dhamaan urshada Soomaaliya iyo guud ahaan TV-da insha Allah kala socon doontaan sida uu sheegtay waraysiga aad ka qaadnay sidiisii oo tafatiran oo ididgaraysan insha Allah adigana insha Allah kulliin garan doona waan salaamaya intaas insha Allah iyo noogu waraysigii aan la yeelanay gudoomiye ku-xigeenka hore ee degmada Galkacyo Dr. Yacquub. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.